maogtahay inay jirtay qiso dhex martay Fircoon iyo la taliyihiisa Haamaan ka hor intaynaan bilaabin ku sala nabiga sallallahu alayhi wasallam sidoo kale ha iloobin inaad like saarta muuqaalka naguna soo birta saad wax badan u faa'iido maalmaha ka mid ah ayaa Fircoon waxa uu la fadhiyay Haamaan oo ahaa la taliyihiisa ugu weyn wuxuuna Fircoon u soo bandhigay Haamaan arin uu doonayay inuu ka maqlo fikirkeeda wuxuuna ku yidhi Fircoon Haamaanow Muuse wuxuu leeyahay Fircoon rumee Ilaahay adiguna waxaad heli doontaa boqortooyada Masar iyo adduunkaba aakhirana jannada ayaad geli doontaa aniguna waxaan u arkaa hadalkan mid macquul ah Fircoon wuxuu ku dhawaaday inuu rumeeyo Ilaahay laakiin Haamaan ayaa ku yidhi Fircoonow ma Muuse ayaa ka caqli badiyay adigu markii hore waxaad ahayd Ilaah la caabudo ma maanta ayaad noqonaysaa adoon isagu Ilaahay caabuda maalintii xigtay Muuse wuxuu la kulmay Fircoon si uu maqlo jawaabtiisa markaas ayuu Fircoon ku yidhi Muusow ma caqligayga ayaad caayaysaa ma aniga oo ahaa Ilaah la caabudo ayaad doonaysaa inaan noqdo adoon wax caabuda Muusow waxaad tahay sixroole weyn sidoo kale markii Fircoon lagu halaagay badda dhexdeeda ee uu ku hafanayay wuxuu ku dhawaaday inuu Ilaahay rumeeyo balse malakul Jibriil ayaa soo degay wuxuuna bilaabay inuu afkiisa ku riixo dhoobo weyn si uusan odhan laa ilaaha illa Allah oo Ilaahay uusan ugu naxariisan haddaba daawade adiga su'aal haddii aan ku weydiiyo qisadan hore ma maqashay qaybta kommentiga hoose iyo u sheeg ha iloobin inaad follow noo saarto YouTube iyo Facebook profile ka saarana aad subscribe dhahdo